حديث كان فضل آدي وين ما كسبان قرآنك مركا ugu horeysa qofku qabriga sida uga soo baxo ee daartii aakhiro oo daar aynu haro u aqoon ah oo daar qofku uu daar qalaalood inaga inoo ah oo qofka ku cusub marka ugu horeysa qofku qabrigiisa mud uu ka soo ilaado ayaa waxa la kulma qofka quraanka rasuul ma taqaana hoy ma taqaana wallahi kuma aqaanta wajigaaga soo markii ugu horeysa maxaad ahayd rasuul ana saaxiibkaana soo dhaw ahlan wa sahlan wa shay naftu aadiyaat ay u xiisanayso oo meel qofku ku cusub yahay oo qofku aanu har aanu u arag oo qofku aanu aqoon aanu u lahayn inaad saaxiib ku yeelato waliba saaxiib kasta ma hadde saaxiib wax ku taraya saaxiib aan waxba ku dhaamin ayaa laga yaabaa qofku inuu ku farxo bal saaxiib qofku wax u tarayana ka war oo shafeeca qaaday oo ilaahay uga la hadlayo subhanahu wa ta'ala markaas wax weeyaan uu ilaahay saaxiibkaaban ahay waxaan ahay kii wax weey aad u harraaday ee aad u saamaleyshay waxaan ahay wax weeyaan kii hadii habeen baad akhriyeysay maanta waxaad ku bushaaraysataa maanta inaad cid walba aad igala mudan tahay oo aad ka horeyso markaas laba shay baa la siyaabaa nabiga kaleey salaatu wasalaam al-mulk bil yamin mulkiga iyo boqortooyadii waxa loo galiyaa gacanta midig khuldi iyo waaritaanna waxa loo galiyaa gacanta bidix sababtu waa maxay labada arimood waa labada shay ee ibnu aadamku ugu jecel yahay ajiib ibnu aadam wuxuu ugu jecel yahay inuu noqdo madax boqor inuu noqdo waliba boqortooyadaas inuu waliba ay waarto boqortooyo 4 sano oo dadna iska tagayso naftu marka la xasuusto sibaad noqonaysaa ma ya hawluhu ma saxsana laakiin marka lagu waliba waad ku waaraysaa abada al-aabad baad ku jiraysaa khalidina fiya abadan waa tan naftu ay tahay qofku inuu shaqaysto in qofku ugu jecel yahay oo ibnu aadamku ugu jecel yahay waxa u daliila aabaha nabi aadam alayhi salatu wasalaam shaytaanku wuxuu ku dufsaday shaytaanku هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لبدا شيء ugu balaqad iblis inkaar qaba wuxuu nabi aadam alayhi salatu wasalaam jannada uga soo saaray labada arimood ugu balaqad wuxuu ma ku tusiya geed hadaad cunto al khuld wa mulk boqortooyada helayso waliba aanad waarayso dabadna waxa weeye wax noqotay fawaswasa yani shaytaanku inuu waswasiyo oo geedkii cuno ilaahayna uu diiday subhanahu wa ta'ala marka labada shay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala saaxib al-quraanka uu ku karaameeyay oo ku sharfay markiiba in lagu dhaaf boqortooyadiina gacanta mid ku qabso waaritaankina gacanta mid ku qabso waxa tahay boqor waliba boqortooyadiisu ay joogto tahay oo marnaba aan waxa weeyaan boqortooyo waayeen marka xaaladdu halka marayso ayaa waliba labadiisii waalidna ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku maamuusa oo ku sharfaa in yagana la huwiyo oo la siiyo laba waxa weeyaan isku joog oo qurux badan oo aad iyo aad u fiican oo ahlu dunya aanay hawaysanayninba markaas yaabaan ilaahay maxaanu ku mutaysan markaas la waa ilmihiina inaad barteen quraan maxay quraan marka waalidku sharaf uu ka helayaa in ilmihiisa maanta quraanka u baro wuxuu ka helayaa guul iyo gobonnimo waliba aan dhamaanaynin oo joogto ah oo uu janno ku galayo oo uu ku mutaysanayo wax weeyaan yani xulalka iyo karaamada ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin waalidka fadliga helaya waa kuma waalidkii ilmihiisa la jecel quraanka inuu barto waalidkii ilmihiisa dabagelay waalidkii waxa weeyaan ilmihiisu inuu malcaamada inuu u dhigto xooga saareeyo waqti iyo juhdi gelinay laakiin waxa weeyaan waalidkii ilmihiisa aan ogeynba inuu xataa quraan qaybo iyo inuu xifdiyo iyo maalin intuu malcaamadkii soo tagtid meesha oo aan hansal iyo waxa weeyaan mustaqbal baad ka leedahay iyo quraanka bara iyo dhiirigelin iyo waxaan u sameeynaa waxa dhacday oo la arkay oo waaqic ah waalidiinta qaarkood inay ogaadeen ubadkooda quraanka inay xifdisan yihiin xaflad waxa weey wiilkiisa lagu yaray markaas ay quraanka waxa inoo furfuraya hebel odayga baan xayo saas weego wuu yaqaan quraan wuu akhriyaaba isagiba ilaa uu soo kacay mikrofoonka qabsadaan ku maysan marka kaas oo kale waxa weey ilmihiisi malowga waxa weey quraanna inuu barto inuu waqti galiyay ma aha juhudina ma gelin taabna kama bixin marka qofka mutaysanaya ee waalidkiisa lagu karaameynaya waa waalidkii ilmihiisa ka daba shaqeynaya waa waalidkii ilmihiisa la jeclaan macaamada waa waalidkii maalinku maqnaado wax way ka xumaanay laakiin waalid ay u taagan tahay sayno aynu sheegnay xalay cilmiga wax weeyaan kala ee sayniska iyo cilmi adduunka iyo soddonka sano wax weeyaan yani nolosha ka dhiman kii wax way ka ku dadaalay ka jazakallahu khayran yani khayr buu ka helaya intii ilmaha u baray laakiin fadligan iyo karaamaad kale uu sheegayno hawaysan ma yeesho ma uu soo dhawaanayo sida awgeed ubadkeena wanaga sheegnay xalay
labada shay ee aynu ku gaari karno fadligan weyn ee axaadiistan aynu sheegayna waa laba arrimoodoo kow adigu inaad dadaalto haddaad tahay waalid oo qur'aanka waxaad baran karto aad barato laba ilmahaaga in aad ku tacabto wixii awood ilaahay uu ku siiyey saad u bari lahayd qur'aanka iyo wixii kale wax u taraya adduunba laakiin qur'aanku uu kuu saarnaado maxay meel culus qur'aanku inuu kugu jiro maxay meel aad iyo aad u culus ubadkeenni beryahan waxaa jira dacfi aad iyo aad u badan qur'aankii ma bartaan qur'aan ma xifdiyaan malcaamad waxaad arkaysaa ilmo yar oo 2 sano 3 4 5 6 baan arkay wallaahi warabbi alkacba 6 sano ayuu ku jiray malcaamad qur'aan uu qaybina ma jirto sababtoo maxay subax oo dhan iskuul buu ku maqan yahay casarkii 2 saacadood hadduu soo haleelana ilmaha casarka waa u imaada maalinku seexdana ilmuhu wuu is arkaa maalinku dan yeeshana ilmuhu wuu is arkaa maalinka waalidku wuxuu dir marka 2 saacadood in waxa la doonayaa in ilmihii lagu yara kaantaroolo una halkaasuna wax weeyaan intuu suuqa wareegi lahaa inuu malcaamadda halkaa joogo laakiin qof la doonayo hamli iyo dan laga leeyahay mustaqbalka inuu wax noqdo oo qur'aan uu diyaariyo ma aha ilmaha casarkii iskuulka loo dirayo subaxii oo casarkii malcaamadda loo dirayo subaxii oo dhan iskuulka ku maqan wadiga arkay iskuulka marka ilmaha la geenayo maxay baskii baa waxbay loo diyaarinaya nusaaci baa loo diyaarinaya marihii baa habeenkii loo sii qasaanaya hawl waa maxay way isku beeganta laakiin malcaamadda waxa laga yaabaa isagoo xataa aan fool dhaqnayn xataa inuu tago soo saama isagoo aan fool dhaqnayn baa laga yaabaa inuu tago isagoo waxa weeyaan yani in marihiisa lagu mariyahan maxaa waxa aad ugu xidhatay waa maxay waxa weeye malcaamadda marihii iskuulka weeye maryahan marihii quruxda badnaa ay fiicnaa maryahan xarayso iskuulka ku tag hee malcaamadda kuwii kale ku taga axwaalaysna wallahi waa waaqica aynu ku sugan weeyaan inaynu soo dhatirno maaha waaqicina weeyaan marka runtii walaalayaal bal inuu sidaas isugu dhaanno oo waxway ubadkeenna aynu doonno sida aynu la doonayno maadiga inay bartaanba in cilmiga wax weeyaan oo qur-aanku ugu horreeyo iyo cilmiga kale ee shareecadaba inaynu ku dadaalno oo aynu doonno inay meel aynoo gaadhaan waa shay runtii aynu doonayno berri ka maalin in ilmahaasi uu kaa dambeeyo oo berri ka maalin waxa weeyaan mustaqbal fiican uu yeesho oo ilaahay agtiisa waxa weeye uu ku shafeeco qaado marka ilaahay subxaana watacaala ina wada asturo dembiyadeenna ilahay subxana watacaala dhaafo waalidiinteenna ilahay subxana watacaala u naxariisto qur'aankana dadkii qaadanayey ee ku camal falayey ilahay subxana watacaala inaga mid dhigo wallahu aclam sala allahu cala nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin